walaalkaygiiyo walaashaydii haddaad rabtid inaad ku caasidid ilaah subxaanahu watacaala shantan arrin xusuusno لك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. بسم الله الحمد لله الذي يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات. ولا إيجاكدون سلام كايتمت قلبي كجعل قلبي إله درتي كجعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ولكن عبد الله باجمال ولا ما أنت وحن جعل استي إن أنقل وذا قصة آتي سوجيتين. قصة وحال أوري إبراهيم ابن الأدهم رحمه الله وشيخ عالم والدين توحكى يقام. شيخا وحى ويمت ويل لا يرى مركز ويلكم حيري شيخو ذنب كستو وأسودي إن أنسميه. هذا وحن دوني إن أنكسو لابتو من أود على تاسي. شيخو وحن روا إن أتي وانسيت وأنا قلبي جتاونيسو. وأنا ذا سوي كحنيسو وددا حن كنا كحنيسو وددا توسم. شيخي أيا وحكيري ويلكيو شن أرن سمي شن تأرن مركز سمي سكديب دم بكستو واسمين كرتا ويلكي وفرحي زائد أي وفرحي وحال وفصحي وحو نفس ديسا وراحين لها بدن كنا عمسنا مركز دليرنا هاي وحيالها إلهي حرمي إن أي نفط راح وطايا ويلكي وحكيري شيخو إيشك شنت أرن مركز سميو واحد دون وانسمين كرا سوما إيشك شنت أرن إيشك وانسمينها كدب waxaan rabaa iska sameynaya sheekhi wuxuu ku yiri wiilkaygiiyo haddii aad rabtid inaad dambi samaysid ha ku sameyn dhulka ilaahay subxaanahu watacaala raadso dhul kale oo ilaahay subxaanahu watacaala uusan lahayn wiilkii wuu yaaway wuxuu ku yiri sheekhow see ku dhacaysaa midaasi way adag tahay waa dhulkoo dhan ilaahay subxaanahu watacaala asiga iska leh asigaa maamulanayo asigaa kownkan wax kastoo ka dhacay asiga og wiilkaygiiyo dhulkiisaad ku nooshahay ilaahay miyaadan ka xishoonayn adigoo dhulkiisa jooga inaad ku xasilid wiilkii hoos intuu eegayba wuxuu ku yidhi ii sheeg midda labaad sheekhi wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyo haddaad rabtid in aad ilaahay ku caasidid risqiga ilaahay ha cunin afkaaga ha saarin wiilkii wuu yaabay wuxuu ku yidhi sheekhu middan waa adag tahay midda horey kasii adag tahayba waayo risqiga dhan ilaahay subxaanahu watacaala asigaa bixiyo gacantiisuu ku jira risqiga shimbirka duulayo iyo xuudka badda ku jiro asigaa quudinayo oo risqigan xageen ka raadsadaa maba awoodi baa arrintaas sheekh ayaa wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyo adigoo joogtid dhulka ilaahi subxaanahu watacaala dhulkiisa adigoo dul saaran haddana risqigiisa haween maalin aa cunaysid miyaadan ka xishoonayn inaad ku xasidid wiilkii intuu hoos eegay buu wuxuu yidhi ii sheeg mid saddexaad sheekh ayaa wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyo haddaad rabtid inaad ku caasidid rabbigaaga ku caasi laakiin waxaad raadsataa meel un allah subxaanahu watacaala ka arkayn wiilkii wuu yaabay wuxuu ku dhahay sheekhow way adag tahay midaan waxay kasii adag tahay labada hore waa ilaah subxaanahu watacaala meel kastoo aad tagtid waa kuu jeedaa wuu ku arkayaa bal iska badaayo wuxuu og yahay waxa qalbiga ku jiro yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur bal iska badaaye allah subxaanahu watacaala wuxuu og yahay qoraanjadu madow ee socota haweenkii gudcurka wuu og yahay ilaah subxaanahu watacaala markaasi sheekha wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyo adigoo jooga ilaah subxaanahu watacaala dhulkiisa risqigiisa haween maalin aad cunaysid haddana asigoo kuu jeeda miyaad ku casinaysaa miyaadan ka xishoonayn wiilkii intuu hoos eegayba wuxuu ku yidhi sheekhow ii sheeg midda afaraad sheekh ayaa wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyo haddii aad rabtid inaad ku caasidid ilaah subxaanahu watacaala ku caasi laakiin maalinta malkulmood lagu soo diri doono oo xaggaaga imaanayaan waxaad ku tiraahdaa waqti yar isiya aan laba rakac ku dugto ama ilaahay aa ugu soo laabto ma dhici karto middaasi way adag tahay waayo malkulmoodka hadduu ku imaado waqtigaaga dib loo dhigi maayo faidaa jaa ajaluhum laa yasta'khiruuna saacatan walaa yastaqdimuun xilliga ilaahay kuu qoro baa nafta lagaa qaadayaa marka sheekhii wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyo adigoo dul saaran dhulka ilaahay subxaanahu watacaala risqigiisna aa cunaysid haween i maalin haddana meel kastoo aad tagtid oo uu ku jeedo malkumootu markuu kusoo dirana aadan iska celin karin aadan dhihi karin waqti yar isii miyaadan ka xishoonayn inaad ku caasifid ilaahayaaga wiilkii intuu hoos eegayba wuxuu ku yidhi ii sheeg midda shanaad sheekh ayaa wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyo haddii aad rabtid inaad ku caasidid ilaah
كعاسي لكن maalinta qiyaamo marka ilaah subxaanahu wa ta'ala hortiisa uu keeno oo malaa'igta naarta gacanta laga saaro oo la dhaxo ninkan kaxeeya oo waxaad geysaan naarta geeya ka soo carar waxaad aadaa dhanka jannada aad ama waxaad tiraahdaa maba idin raacayo oo halkan aan joogay aniga wiilkii intuu yaa wuxuu yiri ma dhici karto midaas way adag tahay waa malaa'igta ghilaadun shidaad way adagyiin oo dad xoogan waayo wixii ilaah amarna ku caasiyaan wixii ilaah far way sameynayaan oo naartay ikaxaynayaan markaas sheekhu wuxuu ku yiri hadaba wiilkaygiyo adigoo dul saaran dhulka ilaah subxaanahu wa ta'ala oo risqigiisa cunaysid meel kasto aad tagtay uu ku jeedo maalinta markuu u soo diran aan iska calin karin malaa'igta naarta markay ku qaxaynayaan aan la hadli karin miyaad ku caasinaysaa miyaadan ka xishoonayn ilaah subxaanahu wa ta'ala walaalkaygiyo walaashaydii haddaad rabtid inaad ku caasidid ilaah subxaanahu wa ta'ala shantan arrin xusuusno haddaad rabtid inaad ku caasidid ilaah subxaanahu wa ta'ala dhulkan ugu caasi dhulkan ka tag dhulkan raadso risqiga ilaahay hawnin meelan ilaah subxaanahu wa ta'ala ka arkeen raadso sidoo kale markuu malkumad lagu soo dirana waxaad tiraahdaa waqti risiya in maalinta qiyaam marka la gaarana malaa'igta naarta ku kaxaynayso waxaad tiraahdaa ma idin raacayo haddaadan awoodin intaasi haddaba iskaga tag dunuubtaasi wiilkii wuxuu dhahay sheekhow markhaati ka oho maanta laga bilaabo waan ka towbad keenay dunuubta aan samayn jiray dhammaantooda oo waxaan ku toosayaa waddada toosan oo saxda ah oo ilaah subxaanahu wa ta'ala ii amray wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu